guud ahaan baraha bulshada ee Soomaalidu ku wada xiriirto waxaa qabsaday sawirada ninkan aad u jeedaan iyadoo ay dad fara badan muuqaaladiisa iyo sawiradiisa adeegsanayaan ay faalooyin kala duwan ku soo dul qorayeen qaarkood ayaa ku madadaalaysanayay halka qaar kalena ay tusaale ugu soo qaadanayeen Soomaalida haddaba daawade waxaan kula wadaagi doonaa xogo ku aadan shakhsigan halka uu ka soo jeedo magaciisa dhabta ah dadka iyo wadanka uu ka dhashay sida ay u tixgeliyaan iyo sidoo kale waxa ay tahay shakhsiyadiisan gaarka ah iyo waxa uu ku soo caan baxay balse inta aanan u guda galin waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad muuqaalkan leegarisid leegtu waxay noo tahay dhiirigeliye sidoo kalena aad nagu soo biirtid oo aad asxaabteena ka mid noqotid looga sheekeeyaha noqone ka sheekeeya noqo haddaba daawadayaal shakhsigan oo lagu magacaabo Garandi B maadaama abuuristiisu ay ka duwan tahay dadyowga kaleete waxaa fududaatay qofkii mar arkaa inuusan xasuustiisa mar labaad ka guuri doonin haddaba shakhsigan ayaa caanbixiisu waxa uu ka soo bilowday wadanka Ivory Coast ee uu dhalasho ahaan ka soo jeedo shakhsigan ayaana markiisii ugu horreeyay waxa uu sameyn jiray muuqaalo majaajilo ah isagoo baraha bulshada ku faafinaya sidan oo kale Perché che fuori per le amici. E tu vai a fare. Quanto va a vedere ora? Tu vedi come vi qui. hase yeeshee markii uu baraha bulshada soo galay si sahlan ayuu caan ku noqday dadyow fara badan oo caalamka ku nool ayaana muuqaaladiisa ku faafiyay guud ahaan baraha bulshada waxaana xilligaa wixii ka dambeeyay uu la kulmay dadweyne fara badan oo caan ah ayna ka mid yihiin ciyaartoy iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka Ivory Coast haddaba intaa kadib Garandi B ayaa waxa uu bilaabay in uu fanka ku soo biiro isagoo markaas soo qaaday heeso dhiirigelin ayuu kala kulmay bulshadiisa waxaana ka mid ah heesaha uu qaado heestan masraxiyad iyo taageero aad u xoogan ayuu kala kulmay dadyowga wadankiisa iyo guud ahaan caalamka iyadoona si weyn loo tixgeliyay hase yeeshee Soomaalida ayay la yaab ku noqotay arintani iyagoo maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ku waday sawiradiisa waxaana ka mid ahaa ereyadii la yaabka lahaa oo ay Soomaalidu kaga fal celiyeen ee soo jeetay adduunka xitaa haddii aad doole u eg tahay waa lagu tixgelinayaa balse Soomaalidu isma tixgeliyaan Soomaalida dadkii 66 u dhameystirnaayeen ayaa masraxiyada ka saarnaan waayay macquulna kama noqoteen shakhsigani haddii uu ka dhalan lahaa jinsiyadda Soomaaliga inuu sidan fudud caan ku noqdo iskaba dhaaf inuu caan noqday caruurta ayaa dili lahayd waxay ka mid ahaayeen hadalladan iyo kuwa kale oo fara badan waxyaabihii baraha bulshada lagu soo hadal qaadayay haddaba sidoo kale sheeko la yaab leh ayaa jirtay oo ah in shakhsigani uu sawirro la soo galay haweeney xajmi ahaan isaga aad uga ballaaran dadka Soomaaliyeed ayaana waxay ka dhigayeen gabadhani inay tahay xaaskiisa hase yeeshee xoga iyo macluumaad aynu ka baarnay ninkan marnaba kuma aynan soo helin in gabadhani ay tahay xaaskiisa haddaba sidoo kale daawadayaal dad fara badan ayaa shakhsigan u haysto inuu da ahaan aad u yar yahay hase yeeshee taariikh ahaan waxa uu dhashay 26 January 1986 isagoona ku dhashay isla wadanka Ivory Coast oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo haddaba daawadayaal halkan ayaan ku soo koobayaa macluumaadkii iyo warbixintii aan ka diyaariyay Garandi B haddaba daawadayaal waxaa mar labaad si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad muuqaalka leegaraysaan sidoo kalena aad nagu soo biirtaan oo aad ka mid noqotaan asxaabteena mahadsanid